الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، أوصيكم ونفسي وعباد الله تقوى الله تعالى. walaalayaal, waxaynu ka soo hadalnay labadii khudbadoodee hore ciqaabta iyo ceebta ay leedahay xaaraanta cunideedu. khudbaddii kalena waxay ahayd xalaashoo la cuno barakada badan ay leedahay. khudbaddanna waxa weye sidee loo soo saari karaa xalaasha laftigeedii si xaaraanna looga maarmo. marka cinwaan اlkhudba waxa weeye cilaaju اlfaqri, kayfa caalaja alislaamu اlfaqr. islaamku siduu u daaweeyey waxaan la yidhaahdo faqriga. marka hore aragtida ay dadku ka leeyihiin faqriga way kala duwantay. qolaaba khayr u arkaba, iyo inuu wanaag yahay, iyo inuu diin yahay. waa ragga kaniisadda iyo diintii la bedelay ee kiristanka dadka ku abtirsada. adduunyadu waa wasakh, qofka nadiif ka noqdo un baana ilaahay u dhow bay qabaan. waana sababta keentay gaaladii ku abtirsanay inay iskaga tagaan ee calmaaniyada qaataan, diin iyo dowlad in la kala saaro. qolo kaloo gaalada ka midii faqriga iyagaa ilaashadoo daaya, dadkay doonayaan bay ku daayaan. sababihii keenaya faqrigana way ugu dadaalaan, oo alfitnatu walfiraq, in dadka fitno laga dhex abuuro, firqadana loo qaybiyo si ay fuqaro u noqdaan iyaga u baahda oy u horu mari kari waayaan. oo waxay ku isticmaalaan muslimka iyo adduunyada saddexaad dadkay ku sheegeen casrigan waa silaax iyo hubay isticmaalaan gaaladu inay fuqaro noqdaan kula dadaalaan. si carabtu odhan jireen jawic kalbaka liyatbacka, aygaaga gaajaysi si uu kuu dabagalo ama neefkaaga. laakiin islaamkeennu faqriga uu la dagaalamay wasiilooyin iyo dariiqooyin kala duwan, waxaanu tilmaamay inuu khatar yahay dadka caqiidadooda iyo fikirkooda iyo akhlaaqdooda, qoys iyo qof iyo qaranba, inuu khatar yahay. waayo haddii qofka uu faqiir noqdo ama fuqara ay noqoto ummaddu, dee dadka inta badanna sida la ogsooyay iimaankoodu qawi ma wada ahaa. diintiisi iyo gobonnimadiisiiba inuu dunyo ku iibsadaa laga yaaba markaa. marka caqiidadii iyo akhlaaqdii iyo wax walba uu ka khalkhalgelin karaa faqrigii. oo qof iimaan weyn ayuunbaa u adkaysta mushkiladda faqriga oo xejisto ku sabra. mar labaad wuxuu islaamku u tixgeliyey inuu yahay balaa istacaada minhu nabiyu sala allahu calayhi wasalam. waa balaayo uu nebigu ilaahay ka magan galay. allahuma innii acuudu bika min alkufri waalfaqr. ilaah waxaan kaa magan galay faqriga iyo gaalnimada. bal halkuu raaciye waa musiibo. mar kale wuxuu uhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, allahuma innii acuudu bika min aljuuci fainahu bi'sa adajiic. ilaahu gaajadaan kaa magan galay. wax laga kuu galo oo kula jiifsado aada weheshato gaaja u daran. waxaa islaamku uu kula dagaalamuu kaga hortegay faqriga in la raaco nidaamka islaamka ee dhaqaale ee wanaagsan ee dhexdhexaadka ah, alwasat, ee qofka u ilaalinaya lahaanshihiisii gaarka ahaa iyo xorriyaddiisii, farayana ummadda inuu qeybtooda siiyo. waa nidaam u dhexeeya ka raasamaaliga iyo ka shuuciyadda. shuuciyadduna waxay dhahaan dowladda waxa dadku hayaan oo dhanba leh, waa la wada leeyahy, qofkiiba ikhtiyaar ma leh. raasamaaliyaddiina waxa weeyaan kamaal kale in la caabudo, isaguna dadka madaxa uu kaga fadhiistuu tuumbadii ribada ku nuugo. labadaasuu u dhexeeyaa. qofki isagaa waxaan leh, milkigiisii khaaska ahaa weeye, xorriyatu tasaruf buu leeyahay, laakiin wixii ilaahay ku waajibiya waxa ka bixiyo walaaliha soo kiciyo. wuxuu islaamku faqriga kula dagaalamuu ku daweeyey inuu dadka ku qanciyey ana almaala maalu llah waalcibaadu cibaad ullah. maalku waa maalkii ilaahay, addoomuhuna waa addoomihii ilaahay, ka haya iyo ka la siinayaaba. marka alaabta ilaahay ha kala dhex gelino, haysu diidi. adiga ilaahay baa ku siiyey, isagaana ku yihi kan kale ku ag joogana wax ka sii. qur-aankuna taasuu aada inoogu rabeeyaa. waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih.
ilaahay wuxuu idin siiyo wax ka bixiya anaa idin siiyo wey weliba wakiilaa ilaahay kaga ti wa aatuuhu min maali illaahi aladii aataakum xooluhu ilaahay idin siiyo wax ka bixiya wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira daarta aakhiriya jannada ku raadso wuxuu ilaahay ku siiyey oo ku beero wuxuu islaamku faqriga kaga hortegay inuu faray amara almuxaafadata cala almaali wa manaca atabdiira watakniis waxaa layna faray inaynu xoolaha ilaahay inoogu deeqo ilaashano waxaynu ka ilaalinaya waxaa la yidhaha tabdiirka daadaadinta balwadda lagu isticmaalayo bolotiga lagu isticmaalayo tumashadii xaaraanta qofku ku isticmaalaya meel kasta oo xaaraana ha ku bixin walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kanuu ikhwaana الshayaaطiin wa kaana الshayطaanu lirabbihi kafuura shaydaan buu qofku la walaal noqonayaaba inuu maalkii ilaahay u siiye meel xaaraana ku bixiyo takniiskana waa la diidayo in wixii qofka soo galay uu qufusho oonu waajibkii iyo wixii lagu lahaa ka bixinin والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال هدو قفكم ماله لا يريد كبحين وايو أو اسكا كيتصدى أو حجستو ده نار كاك إلهي بحلقوا بشارع النار إسلام كوحا وكده وفقرق لقا عبانا يوم تلابوين ay ka mid tahay kow tawciyatu alfaqiir qofkii faqiirka ahaa waa la wacyi gelinaya waxaa la leeyahay faqriga ku haya horta ceeb maaha walaysa sifatan laazimatan laka waxaad la dhalatayoo tolkula ana maaha laakina alxalla biyadik xalku gacantaadu ku jiraaba adigu ha odhan weligood kuwaasaa tujaarahaayo kuwaasaa maalqabeen ahaa weligoode halkaa ha fadhiina hore u soo kac adugu sidaa daraaddeed buu nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu asxaabtiisii ku yidhi halkanaa fadhfadhiina orda kaco oo inuu midkiin xaabo soo guro oo suuqa ka iibiyo oo wax ka masruufsado dadkana wax siiya waxay uga fiicantah inuu ummadda barbariyo oo shaxaado alxallu biyadik weeye xalku gacantaadu ku jiraa raadi shaqo kastoo xalaala u dhaqaaq waqad takuunu qaniyan wa mustaqniyan inaad maalqabeen noqotaana waa laga yaabaa ti soomaalida qaarkood odhan jireen dadaala xaaji cabaas waa gaadhaa taa jira buu ahaa kaa waad gaadhi kartaa bay ku leeyiin haddaad shaqaysato cumar ibnu khadaab wuxuu leey low kaana alfaqru rajulan laqataltu wallaahi bahalka faqriga la ydhaha hadduu nin noqon lahaa anaa u bixi lahaa oo dili lahaa wuxuu arkay nin iska cibaadaysanayo qabta un haya salaada markaasaa wuxuu hi akhuuka khayru minka walaalkaabaa kaa khayr badan waa kaa shaqo tegay adigii reerkaba masruufaya adda halkaasumaad salaad la taaganta salaadaadu aday kuu gaartay ninkana ummaddu anfacayaabu ilaahay baa wuxu uhi walikullin darajaatun mima camiluu qof waliba wixii uu camal falay buu darajadeeda leeyahy diin iyo duunyaba bushaarana ilaahay wuuna siiye wuxu uhi sayajcalu allahu bacda cusrin yusra ilaahay farajkiisu waa soo socdaaye faqiir haddaad tahay uu kaa dulqaadi karaa dadaal in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih waa bushaarada ilaahay dadku hadday fuqaro yihiin dee ilaahay baa fadligiisa siina iyaguna dhaqdhaqaaq ha sameeya waxyaabuu ku daweeyey bay ka mid tahay in layna faray an numakkina alfuqara'a min adawaati اlintaaj dadka faraha madhan inayna u sahalo say wax u soo saari ka lahaayeen oo inaan sidaa aynu gaalada kaga soo warrannay meel ku haynine aynu hore u soo kicin lahayn oo majaalka iyo meeshay ka howlgeli lahaayna wax ka soo saari lahaayeen loo waasiciyo maalka wax laga siiyo ama la amaahiyo tadriib la siiyo tababarkay ku shaqayn lahaayeen dadkani waa doorka ay leedahay siyaasadda dhaqaale ee islaamku ee madaxda muslimiintuna ay u taagan yihiin oo laba arrimood baa la doonayaa inay madaxdu u dhaqaaqaan oo inay intaajka badiyaan ziyaadat lintaaj dadku si ay faqriga iyo caydha uga baxaan gobonnimada darrada sababta u ah in loo sahlo say u shaqaysan lahaayeen iyo taqliilu lictimaadi cala alkhayr dadka kale ee bani aadamka ah aynu ku tiirsannahay ee doonaya inaynu ku tiirsanaano iyaga si ay noogu taliyaan in laga maarmo
waxaynu garan karaynaa taariikhda markaynu dib ugu noqonno rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo asxaabta wax badan baynu taa ka qaadanaynaa. waxaa dhacay hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaab badan baa ka tegay dalkoodii dunyadoodii dadkoodii reer maka markaasay madiine tegeen. mushkiladaha adduunka ugu daranna hadda qaxoontiga ka mid a ee aada looga cawdo dowlado badani ka qaylinayaan si dhib yar buu nebigu u xalliyay calayhi salaatu wasalaam. dadkii deegaanka ahaa iyo dadkii soo guuray soo hijrooday ilaahay daraaddii ayuu isku mataaneeyey ama isku lamaaneeyey, isku qoys buu ka dhigay. maxay sameeyeen laakiin qoladii reer maka saxaabada reer madiine u yimi, dee marti baanu halkan aanu iska wardiyaynaaye qoriga iyaga iyo qusumka iyaga noo keena may odhanin oo dadkiina adduunyadiina ka shaqeeya. laakiin waxaa lagu heshiiyey inay shaqada la qabtaan, beeraha la qodayaa, ceelashaa la qodayaa, waxbaa la wada beerayaa. marka waxay yidhahaan xoolaha annagaa leh laakiin nala shaqeeya, wixii ka soo baxana aan qaybsanno. sidaasaa saxa bay yidhahan. qayb ka mid ahoo xirfadlayaala oo xirfadda ganacsiga aada u yaqaana sida cabduraxmaan ibni cawfi iyaguna suuqaabay tegeenba. sacd ibnu rabiic buu nebigu la walaaleeyey radia allaahu canhum wa ardaahum. cabdiraxmaan ibnu cawf ayaama kadibba waaba maalqabeenba. suuquunbuu tego wuxuu arkay fursad ganacsiyo ka jirto oo dahabkii iyo lacagtiiya buu kala rogrogayoo in yar kadibba waaba guursadayba oo nebigu wuxuu arkay isagoo guursadayba oo ka maarmay saaxiibkii lagu daray. qofka muslimka ahay sidaasuu markaa sida qur-aanku uu faraya xadiidku uu faraya nusuus aada u badan ayaa u howlgelaya. waajibna ay nagu tahay dadka weliba hogaaminta xilka ummadda u hayaa inay fursaddaa dadka u saamaxaan ay u sahlaan. lidaalik baa islaamku qofka muslimka ah ee soo shaqaysanaya iyo ka mujaahidka labada markuu ilaahay sheegayay kii muslimka ah ee soo shaqaysanayay ayaa la horraysiiyey. waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illaah waakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili illaah. cibaadooyinka habeenkii waxaa la idinka fududeeyay baa ilahay uhi dee qayb baa shaqaysanaysa maalintii, qayb baa jihaadka galaysa. qaybtii shaqaysanaysaaba aayadda horraysiisa ila jihaad buu ku jiraa, cadowgaasu ka maarmayaa. carabtu xikmaday leeyihin badan sidaynu inaguba xikmado badan u leenahay. xikmadaha soo dhiirinaya arrintan aynu ka warramayna iyo wax soo saarkiiyo dadku inay isku filaadaan. waxaa ka mid a xikmadda odhanaysa laa tucطi alfaqiira samak walaakin callimhu kayfa yashdaad. qofka faqiirka ah kalluunkun ha u badin intood usoo saarta, lakiin waxaad bartaa sidaa uu kalluumaysan lahaa ee u shaqaysan lahaa. hadda hay-ado badan baa waxay ku dadaalaan dadka inay u keenaan raashinka kadibna loo kariyo la yidhaha kuyuu gal oo dee fandhaalka iyo soo qabsada fujaanka ha la ydinku rido. dadka qaarkood aragti gaaban waxa odhan waa nimanku wanaagsanah oo hawshiiba way naga filaadeene raashinkooduba waa diyaare dee halkiina aan iska ciyaarno. markay meel gaadhaan ay isku tashan kari waayeen baa laga jarayaa, waa kuwaa gaajo wada baktiyey. marka waxay tahay dadka waxaa dhaqdhaqaajinaya ama wada in la yidhaahdo waxaan u baahannahay mashaariicda horumarka inaad noo samaysaan oo kuwani qaafigee gurmadka degdega intoo dhaaftaan wixii dadkani uu ka shaqaysan lahaa inaad noo soo saartaan. adduunyada islaamka had iyo jeer kuwa sidaa u fikirayana gaaladu ma jecla oo waxay dhahan kuwani waa inaga maarmayaan. xikmadaha waxaa ka mid a xikmad odhanaysa suncatun fi lyad amaanun min alfaqr. inuu qofku xirfadla yahay wax soo saari kara waxay ka badbaadisaa inuu faqiir noqdo. oo qofku kolkuu mutacalim yahay ama xirfadle farsamo yaqaana yahay meeshuu tagaba wuu ka shaqaysanayaa un baylahdaa ka jirto dadkii wuu samaynayaa. sidaa daraaddeed baa siduu nebigu inagu dhiirinayo sala allahu calayhi wasalam ay habboon tahay dee xayawaanada ilaahay u abuuray bilaa caqliga iyo shimbiraha inaynaan ka liidanin. tusaaluu nebigu ina siiyo wuxuu ihi low tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakuli larasaqakum kamaa yarzuqu طayr taqduu khimaashan wa taruuxu bidaana. haddii intoo tacab samaysaan ilaahayna tala saarataan wuxuu idiin arsaaqi siduu shimbirta u arsaaqo. subaxdii bay kala haysaa iyadoo gaajaysan iyadoo dheregsan bay soo noqonaysa oo sahaydiina u sida dhalaheedii yaryaraa. laakiin ilaahay bay tala saaratay maaha oo keliya ee taqduu buu nebigu leeyahy way kala haysa. inaguna dee fadhfadhina shaqaa la laaya waa wada qayilaya waa balwadlayaal. dadka intooda badan inta yare dhaqaaqaysa culays ku yihin fa huwa kallun calaa mawlaahu
si faqriga loo xaliyo arrinta lixaad ee islaamku ku xaliyo ku daaweeyey waxa weeye amara alfaqiira alicfaafa walkafaaf wa amara alghaniya alinfaaqa wazuhd labadaasaa wada socda qofkii faqiirkaa waxaa la yidhi dadka ka daa culayska iyo dawarsiga waxda haysana marxiso dee shaqaysana oo su-aasha islaamku waa la diiday qofka inuu dee xaalad adag uun mooyaane inuu dadka shaxaado oo uu wax weydiisto xaduuro waa loo diiday kaa su-aasha yareeya baa la yidhi kuwii baahnaa kuwii maalqabeenka ahaana waxaa la yidhi garaacasho un ha yeelanina garasho yeesha dadka qaybi garaacashay leedahoo ma tawaabo waxna ma bixiyo ilaa dee la wareeriyo oo la yidhaha noo dhiibta lagu badiyo qofna garashuu leeyahay oo dadka uu kala yaqaanaayo ka bahan buu halkiisa ku siinayaa markaa kanowna garasho yeela baa la yidhi kanowna garaacashada daah waa la isu celiyey markaa dadkiina dawarayayna dhibaya way yaraanayaan kuwii wax garanaya bulshada u gurmaynaya way badanayaan siyaabuhu ku daaweeyey islaamku faqriga ay dadku la ildaran yihiin waxaa ka mid a inuu badiyey meelo badan oo waajibaada oo maalka ay tahay in la bixiyo ilaa 20 siyood 20 arrimood ee soo socda oo 5 ka midun ay sunnata 15 kalena waajib ay tahay in wax la bixiyo waxaa ka mid a maalan sakadii xoolaha kafaaradii dhaarta kafaaradii nadarka qofku markuu wax wanaagsan oo tabaruca ku nadro kafaaradii dihaarka kafaara gudkii dilka kii soomka waajibkii xajka markuu ka tago xajka dhexdiisa shay xaaraana markuu la yimaado walqashi sakaat fidrigii odxiyadii biilkii la siinaya dadka qaraabada xaqii martida dhaxalkii la qaybsanayay hibadii sadaqadii ilaa 20 shay weeye intaasoo dhan waxaa la soo shubo akoonka ha lagu soo shubo dadka baahanna ha la liisteeyo hana loo qaybiyo arrinta toddobaad ee ugu dambaysa waxa weeye mowduuc ballaaran weeye kolay muxaadaraad istaahile waan cala niqaad isagoo qodobaysan u baynu soo gudbinaynaaye waa inay dadku isticmaalaan xalaasha weliba waxa ka dhaxeeya dadka ammaanada dadka ka dhaxaysa haya waa inay xalaasha ku dadaalaan xaaraanta iska ilaaliyaan waayo waxaa la wada leeyahay shuraakada lagu yahay haddaad aragta dadka qaarkood oo badsaday ama ku naaxay kuwa kale ee baylahsan ee fuqarada ah ee yuubyuuban bay ka go-antay intii isu daalacanaasili lahayd baa dhinac u dheeliday sidaa daraaddeed ayaa arrintaana islaamku aada uga digay marka inuu qofku xaaraan badan ururiyaa laysa fiiha baraka ma laha mana odhan karno faqri buu ka badbaadayaa iyo wax soo saar buu la yimi ee waxay iman doontaa un intuu ilaahay baalmariya waxa xaaraanta uu ku ururiyey goordhow isagoo faqiira inaynu aragno kala kacay oo surwaalku ka dhacayo idan marka arrinta toddobaad waxaa ka mid a in xalaal wixii lagu soo saaro xaaraani wax soo saar ma noqoto faqriga lagaga badbaadi karo toddobada arrimoodba waxay ka mid yihiin dhaqaalaha xalaashaynu doonayno siduu islaamku u dhigay in lagu soo saari karo idan marka haddaynu ummaddeena arrimaha u dhigno oo dadka ganacsatada dhaqaalayahanka madaxda lagula dadaalo wax badan baa maanta laga raysan lahaa allah inagu anfaco اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة